أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. waxaynu kusoo guda jirnay akhyaari inaanu soo sharaxnay programkii ahaa marxalada tansiiqa oo ahaa balka la yiraahdo barnaamijyada العقيل. طيب markaynu barnaamijyada العقيل waxaynu casharkankii ka horeeyay kusoo sharaxnay sida loogu shubayo, sida loo soo dejinayo oo aan idin siiyay linkiyadii iyo sida loogu shubayo oo aan idin soo tusay. haddana waxaynu gali doonaa haddii Allahu yiraahdo tatbiiq inaynu ku sameeyno barnaamijka oo waxa la yiraahdo برمجيات عقيل إننا نكون سمعنا تطبيق. هذا أيضا هني نكون تطبيقين دولنا، وأيضا هو حضرتان إني سنسيدي مصحف كعادة أو ديار سنة، لكن أيضا اللي يسكسوا قلية ومكتبة شامل ميلها اللي يسكسوا قلية أيهين. طيب وحين سمعنا دولنا مركا إنتينا هل كان كنت تطبيقين برنامجك وحين نفرنا بقع صوية نفرنا أما صفحة صوية نفرنا. حين نسلق من دولنا طبعا كنترول بلاس إن si ay safxad cusub ama waad cusub inoogu furmo. halkan ayaan barnaamijka intiisa badan kusoo tadbiiqin doonaa. barnaamijyada العقيل inagoon taaban ayaan waxaan taabanaynaa control plus 7. waxa ugu horeeyo horta barnaamijka sharxayna waxa weeye quraanka sida loo soo gelinayo. dabcan barnaamijku waa mutakaamil sidii kii qaalib al-buxuudka oo kale oo quraanka meel laga soo geliyo leeyahay walow qaalib al-buxuudka quraanka habka loo soo gelinayo oo adka aqbaalka la yiraahdo aayada waxa la yiraahdo abiyada ama ashcaarta laftarkeeda meel laga habeeyo leeyahay sidii qaalib al-buxuudka oo la laakiin qaalib al-buxuudka way adkayd oo kana way ka sahlan tahay. waxyaabahaas oo dhan ayuu fahriski buu leeyahay oo meelii fahriska laga sameeyo oo waliba aad u dhaqso badan ma sha Allah ajiib ayuu leeyahay. fahriska aayadihi baad sameyn kartaa, kii xadiidka sameyn kartaa, kii waxaad sameyn karaysaa waxa la yiraahdo mawaadiicda oo aan sharxaynay waar ku soo sharxaynay waxyaabahaas oo dhan ayaad sameyn karaysaa. hadda marka waxaanu sharxaynaa ugu horeynaa aayadaha quraanka sidee baynu soo gelinaynaa. aayadaha quraanka sidee loo soo gelinayaa ma sha Allah aad buu ugu wacan yahay barnaamijku oo waxa la dhihi karaa waa looga kaaftoomi karaa labadii barnaamij oo kaleeto oo ahaa maxaan ku yiraahdaa mushaf al-Madina iyo Qur'aan war walow labadooda muhiim ay yihiin haddana waxaa laga yaabaa inaad halkan laftarkeeda aad ka heli karaysay shaqooyinka ay ku qabanayeen kuwaas mid la mid ah ama kaba sii horumarsanba. okay markii aan isla qabano control plus 7 xarafka 7 waxa inoo soo baxaya waajihada noocaana. waajihadana waa tii quraanka laga soo gelinayo. haddaba waajihada ayaanu sharxaynaa. waajihooyin kale ku sii guda jirana waynu sharxi doonaa haddii Ilaahay idmo. batamadan inoo muuqdo dhan ayaynu sharxadir ku soo qabanay. waxa ugu horeeya waa xarfi s. meel kasta xarafka s ku aragto macnaheedu waxa weeye taxdiid waxa ka horeeya inay highlight gareyso. waa su'aal haddaan s taabano wixii ka horeeya highlight gareysmaya. s-tan haddaynu taabano wixii ka horeeya highlight gareysmaya. markasta aad s taabado waxa ka horeeya ayaa highlight gareysmaya. inta s ka muuqataana waa dhowr meelood oo wax fara badan ma yahay. waxaynu doonaynaa inaan aayad soo gelino aayadaha kamid ah. marka waxaynu taabanaynaa xarf s si ay haddii Ilaahay ku ron yahay ay inooga highlight gareysanto wixii hore ku jiray. meesha marka hore ma banaana waxba ku jira. tusaale waxaynu leenahay fa rabbuka waxaynu dooran doonaa markaynu fa rabbuka qorno halka ka horeysa waxa wada raqam 1 baxthan an ayatin bi juz'in minha. qayb kamid inaan halkan ku qorno ayaan aayada ku dooranaynaa fa rabbuka ku qornay tag markaynu siinana halkan ayaa natiijadii ka soo muuqanaysa fa rabbuka lanas'alannahum ajma'in fa rabbuka lanahshurannahum washayatin. طيب labadaas ayado ayuu soo qabtay kalimada fa rabbuka ku jirto. sidaas ayaynu sameyn karaynaa baxthi markaynu doonayna aayada halka ayaynu ka baxdinaynaa shayga aayad kamida aayada shay kamida ayaynu halka ku qoraynaa ama habadnaada dhowr kalima aan qorno ama hal kalima aan qorno laakiin halka kalima waa inay tahay kalimatan yaqillu dawranaha fi al-bahth. طيب markaynu intaas waxaynu soo ogaanay qaabkaynu u baxdinayno oo sahal qaabkan aan u baxdin karnaa wuu jira laakiin kan ayaynu ku soo ogaanay. waayahay waxaynu sameynaynaa marka xaggan hoose waxaad aragtaa khiyaaraad fara badan. intaas ayay noo joogtaa labada qodob ayaan ka adeegsanay kor waynu u socon doonaa haddii Ilaahay idmo wax badan baa noo dhiman laakiin khiyaaraadkan khiyaaraat al-bahth baa la yiraahdaa. haddaynu doorano kalimatul mutaabiq macnaheedu waxa waaye kalimatul mutaabiq in ay sameynayso waxa la yiraahdo ereyga aan qornay wax la mid ah. مثلا sabara baan qornay sabara waxaan sabara ahayn noo keeni maayo. isbir buusan keenin, isbiru buusan keenin, sabran buusan keenin, waxaan sabara ahayn noo keeni maayo.
haddaan niraahno bitashkiil oon calaamad saxda saarna ayadana wuxuu inoo keenayaa shayga sidaa u xarakaysan oo keli ah ayuu inoo raadinayaa waad fahamteen laakiin haddaan labadaba calaamadda ka qaadno haddaan calaamadaha saarno sidaas way mudaabiq haddaan calaamadda saarno wuxuu inoo keenayaa keliya ereyga aan qoray wixii la mid ah bitashkiil haddaan calaamadda saarana sidoo kaleeta wuxuu keenayaa xarakadaa saaran mid la mid ah oo xarakada xaraka ka bedelan keeni maya laakiin haddaan ka qaado mudaabiq xarakada calaamadda saxda wuxuu ii keenayaa sabara iyo wixii la mid ah sabara isbir fasbir fasbiru waxyaabahaas o dhan ayuu keenaya laakiin tasaariifta aada ugu sii xeeldheeraan maayo oo waxaynu arki doonaa biljadar oo tasaariifta iska leh oo kelimada tasarufkeeda oo dhan i keenayo bitashkiilla waa sidoo kale haddaan calaamadda saarana xarakadaas meesha saaran oo ereygaas uu leeyahay ayuu ii tadbiiqinaya haddii aan ka qaadana waxay noqonaysaa shayga xarakooyinka kala duwan oo dhan ayuu inoo keeni karaa amaa biljadar marka koobaadba calaamadda aada saartaba wuu kugu soo celinayaa warqad ayuu kugu soo celin doonaa laakiin warqadda waad gudubbi doontaa markaad gudubtidna wuxuu kuu samaynayaa inuu kuu sameeyo kelimaadka tasaariifteeda oo dhan yacni isbedbedelka kelimada oo dhan sabara saabir isbiru maxaan ujeedaa sabara saabir sabrun waxyaabahaasoo dhan kelimada tasaariifteedii oo sarfiga ahayd ayuu kuu raacin doonaa amaa mutafariq markaad tiraahdo mutafariq waxay qaabilsan tahay kelimaadka kala duwan oo ereyga ku jira tan inaan tadbiiqina waa waajib waaye halkan inaan saarna baa kasii fiicnayd tusaale waxaynu u baahannahay qur-aanka imisaa ku jirta kelimatu alleyl imisaasa ku jirta kelimatu annahaar dayb markaas halkan waxaad ku qoraysaa alleyl waxba udhexaysiin maysa haddana waxaad qoraysaa annahaar labadaa markaad qortid mutafariq ayaad calaamadda saaraysaa dabadeedna baxthan ayaad dhahaysaa saa markaa ugu dhufataba waxaad ujeedaa natiijo inuu kuu saaray ah 39 aayadood oo ay ku jirto kelimatu alleyl iyo annahaar ha isku xigeen ama ha kala dugaan waa fahamtay tuuliju alleyla fi nnahaar oo kala tusaale ina fi khalqi samaawaati walardi shardi maahan inay sidii baalka la yihahdo isugu xigaan inay haddii xataa kala duwan yihiin meelo kala kamida ay kala jiraan ayaa dhici kadha qaalataa biikhtilaafi alleyl واختلاف الليل والنهار وجدا طيب تاسنا waxay qaabilsan tahay mutafariq sidaas oo kale waxaad sameyn kartaa kelimada as-samaa iyo al-ard waxa qoraysaa al-ard hadana waxa qoraysaa as-samaa hadaa qortid al-ard was-samaa wuxuu baarayaa iyadoo sida ay isugu xigtaa al-ard was-samaa mana helaayo laakiin waxa qoraysaa tusaale al-ard dadna as-samaa hore baad ka bilaabaysaa متفرق ويسارنتها بحث ما لا طيب وحوالة أفرتن يشن كلمة إنه إيه كاني فأرض والسماء نسكي حيانا على شرط ما هربان كوش يعني هذين هرو يصير عنها هل كان واحد خيارات الإدراج والسيابة وحلوسه قريب طبعا برنامج كان شرحات يسأل بهم وماها لكن خطوط أيامهما خطوط واحد وشدا إن هل كان أنا ضارنتها حفص عن عاصم إصدار ثاني يعني خطك وكقرنيها مصحفك حفصها أو عاصمة رواية بالك اللي هذا يعني رواية عاصمة وحنو كذا رواية الحفص قراءة عاصم إن وحن دعية إن أيدي يكون لا هذا اللي إصدار هر أو إصدار واحد اللي هذا إصدار دم إصدار ثاني اللي هذا طبعا هو كل هر مرسينهين كذا إنه قارن إنه وريع كرتا فرق أو لحية يعني لبعض إصدار فرق أو لحية مركا هذين علامة دام فرنا وحيناصب بحي إصدار ثالث إيوه إن خط شعبة أوليه عن عاصم ورش عن نافع قالون عن نافع وهكذا خذوا كي أدربتين أي دوران كريسة لكن مدة صارن أي أصلا هوري هذا نوصي بحنا إدراء إفكاراتي وحي نقول سيدي هور أو برنامج كلوسو دياري إنه كل عبطه هل كي هوري إنه تكتو أي كنيسة أما هذه أن دوران الترجمة وحال عايسة آيات مركو لمية كدب إنه ترجمة سوكريت صار هذا علامة صارنا أيضاً وانطرنا تبدأنا وحلنا إدراج المحدد إدراج كامل الآية هذا نراهنا لا مباهنا إدراج المحدد أيه نراهنا إدراج كامل الآية واتقينا شرحات طيب إدراج المحدد مركان نراهنا أوكي وحدو تشيدا هذا الترجمة نظرا حدو تشيدا آيات مركو لمية هذا الترجمة دينو راعي أو إنجليش وهذا دورانتها هاي محل هذا الترجمة هذا الترجمة علامة قاعدة لكن وأنا إدراج المحدد
waxaad arki doontaa in uu inoo sameeyey aayaddii oo keliya waxba wadan halka la yidhaahdo aan wadanin tarjamadii aan wadan way sidoo kaleeto waxaan aragnaa cuzuwul aaya inuu geeyey xaggee wuxuu inoo geeyey halka la yidhaahdo wuxuu inoo geeyey xaashiyada cuzuwul aaya wuxuu inoo geeyey xaashiyada waan usoo laaban doonaa keebaa fiican ma inay suuradda la socoto mise in xaashiyada la geeyey dabcan baxthi cilmi ahaan inay xaashiyada la socoto ayaa fiican laakiin barnaamijkan mutadalabaadkiisa markaynu u fiirino waxaa fiican in aayad suuradda noola socoto halka la yidhahdo aayadda inay noola socoto لأنه هدينا أبا هني هذا وين أنكو سمينا وحل يراهد إن أنكو سمينا فهرس الآيات وعزوي جنا ونجد شيء حاشية ما إنه أقبل على إنه سمين لأن بس يعني مركا فهرس الآيات وسمينا وحينوها بدنا يلصقطه آيات سيدي آيات ولصق عنيسا أما حاشية وتجيسا 10 هذا ضمبه أما 10 كنا لفتر كيسا ضن كبرنا نقول هذا 10 ضمبه يعني كلينا ضنا أيه نقول قاعدين ضنا هذا برنامج كان نسيج بجبهية عن هوش عن كل وجه هذا أنا لما واحد مدرس 10 موين 10 لما يوجب جبوب المصحف أما آياتها قرآن كثير لو سجلنا إن أنت واحد نكون فهمني آيات السيدة بينو سجلنا هذا واحد نسمعين كراس ده سكة بدلا إن آيات وسجلين كرينا هو ما حي لبس يابط أي نقانيسا آيات قريب كم إذا إن نحددنا سال آيات أنا قريب كم إذا إن حددنا كي هريتو أنا هيستي يبقى كان لفتر كيس عن كتطبيق كرينا وما أتاكم الرسول أيان حدد كرينا مركينا حددنا أيام وحن سمين كرا إن أنا إرادة كون وحضرتها آيات لن نسوقلي سيدو كليتو وما آتاكم الرسول أيان لو تشوكتي أيان أنت كوريس أيان اسك حدد كرينا أن اسك تيري كرينا برنامج لفتر كيس نسل الله قول ريبا يولي هاي وأنه أركضونا هدي لهاي دبقاب كاسنا نكسو قلين كرينا آيات دينا نكسو قشان هنا تلاحظوا كونترول بلا سمن هريبو كاقا باريا آيات دي لفتر كيدي بحكي كده وهي وحاوي مركا برقرام كاسي وانتا سيدا كلام كباري كرنا وحاوي اسم الصورة لأننا بارنا هالكان كقرنا صورة دا نوباهنا هاي تصالة على الانتظار أيون نقرني هالكان تاب أيون نسكده هينا بس تاب أيون تابانينا هالكان ويسو أغاي هاي لترينا waxaynu qoraynaa suuradda aayadaheeda mid ka mid ah dabcan waa inaysan suuradda ka badnan tusaale waxaynu leenahay aayadda koobaad ilaa aayadda 8aad markaas ayaa waxaan leenahay idraaj al-aaya biraqamiha waayahay okay waxaa aragtaa 8 aayadood oo suuradda ka mid ahayd inuu soo geliyay دي آيات وصورة كاملة إنه سوق لي آيات هي هل كان ريما كوسيس عنا هدان عين كادورنا وحي كدغنتا هاي عربي إذا هدان دورنا وحي كدغنتا هاي إنجليش يعني إن أرقامته وحيابها هل كان كموضوع أيام عربي سبدلاية أما إنجليش سبدلاية هذا عربي الناس عرنتاي وعربي بينا كدغنتا وسنا هذا بكشر حينا هدان إذا دورنا شياش يلا وحي سبدلايان إنجليش أي سبدلايان أو إنجليش أي كلمانتا مركان إيبان دوران دونا عربي جسان ولابته افتان كهر رئيسا هذا ديار ما يهن وشرح برنامج بالفيديو مركب فيديو كم يشرح هذا وبرنامج كان الله شرحه مع فيديو واسقع أي الله قلت لك كان فيديو جين لقد داوضه لكن فيديو جين ما كنت هذا هذا النهار وإحنا مثال تطبيقي أنه كل فننا وحيناصر بحي شرح كابن أو أخذات خسيدة يسجل بيالين يحيى بهذا طبعا الصفحة أنا جاي نوفر ميسا صفحة ممكن نوفر أنتنا وحين سينا مقارنة بين خط برنامج إدراج الآيات حجم الآية أيوه نقصين دونا برنامج كواحد هذا شرحات كوبا أوكي شيء كان مذوه هذا إنه كله فنا وحيسوب بدليسا أو جهتي وحي ودم وحيسوب بدليان مذوقان أيضا الله مبانا لكن كان كهر رأي أنت كله فتي تابتين مركز أيضا بس كان سليسا دبل صفر مرلوات كنترول بلاس سمن سيأي كقول لا برنامج كطبان هذا بإعدادات إيه عرض كامل إيه شرحات قيبتان هوسه إيه قيبتان حقا جنبيان أو مسبوقة إيه جنبيان خط ضع خط ثالثة هل كان انتصبه وحين نكشر حين 10 كان نصوص عضا لكن 10 كان معقول ما هن يعني توصل إسرائيلنا وأنا بسعيد أحمد فارح عيد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.